wararka ka imaanaya dalka Turkiga ayaa sheegaya arrin mucjiso ah oo ku saabsan wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed. wararkaas waxay sheegayaan in garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada Ankara lagu qabtay wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah kaas oo iska dhigayay qof dumar ah oo doonayay inuu u dhoofo dalka Ingiriiska. sida ay sheegaan warbaahinta Turkiga, wiilka ayaa adeegsanayay baasaboor iyo dukumiintiyo kale oo ay leedahay Khadiija oo ah gabar Soomaali Ingiriis ah oo ay saaxiibo yihiin, waxaana marka la qabtay uu doonayay inuu u duulo magaalada London. wiilka oo magaciisa lagu soo gaabiyay Ibrahim ayaa ku labistay dharka haweenka dhalinyarada ay xirtaan, sidoo kalena aad u soo marsaday waxyaabaha dumarku isku qurxiyaan ee loo yaqaan make-upka. muuqaalo la baahiyay ayaa waxa ay muujinayaan Ibrahim oo qofka arkaayo uu u deysanayo gabar dhalinyaro ah oo ku sugan gudaha garoonka lagu qabtay. Ibrahim ayaa la rumaysan yahay in hawshaas oo dhan uu u maray in uu halkaasi ka dhoofo, isaga oo la aaminsan yahay inuu yahay gabar oo aan marna loo malaynin wiil. warka ayaa intaas ku daraya in ilaa iyo xad ay isu eg yihiin, isku da'na yihiin Ibrahim iyo gabadha iskale dukumiintiyada uu doonayay inuu ku dhoofo. booliska waxay sheegeen in uu shaki geliyay make-up xad dhaaf ah oo uu marsaday wiilkaasi. intaas kadib ayay sheegeen in ay dib u laabteen oo daawadeen muuqaalada ay duubeen kaamirooyinka garoonka. ugu dambeynna ay heleen gabar dukumiintiyada u dhiibaysa wiil dhalinyaro ah oo u muuqda qofka ay ka shakiyeen. booliska ayaa qabtay Ibrahim waxaana la geeyay meel gaar ah, dabadeedna waxaa laga codsaday inuu iska qaado maryaha uga daboolan madaxa uuna iska tirtiro waxyaabaha uu marsaday. Ibrahim oo ay u caddaatay in tala ay farihiisa ka baxday ayaa u hoggaansamay dalabka ciidanka, waxaana sidaas lagu ogaaday xaaladiisa oo dhan. sidoo kale booliska ayaa baadigoob ugu dhaqaaqay sidii ay u qaban lahaayeen gabadha siisay dukumiintiga ee Ibrahim kala shaqaynaysay inuu u dhoofo dalka UK. ugu dambeynna ciidanka ayaa ku guuleystay inuu gacanta ku dhigo Khadiija, waxaana iyada iyo Ibrahimba ay ku jiraan gacanta ciidanka nabadgelyada ee magaalada Ankara. arrintan ayaa dhalisay yaab iyo amakaag iyo hadalhaynta ugu xooga badan ee ilaa iyo markii ay dhacday looga sheekaysanayo dalka Turkiga iyo meelo badan oo dunida ka mid ah, waxaana la sheegay in dhacdadaasi ay tahay mid aan horey looga baran garoomada diyaaradaha ee Turkiga. dalka Turkiga ayaa waxaa si isdaba jooga u taga dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo u taga waxbarasho, caafimaad, ganacsi ama arrimo la halmaala. hase yeeshee in badan oo ka mid ah ayaa halkaas waxay u tagaan inay uga sii gudbaan dalalka qaaradda Yurub si ay uga helaan magangelyo iyo deganaansho. wiil dhalinyaro ah ayaa lagu soo waramayaa in caawa lagu dilay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. dilka wiilka oo ka dhacay meel ku dhow abuunda kala qaybisa magaalada Jowhar ayaan la ogeyn cid ka dambeysay, iyadoo halka ay gaareen ciidamada booliska baaritaan ka sameeyay. sidoo kale xalay ayaa lagu dilay wiil kale oo dhalinyaro ah xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar, iyadoo dilka wiilkaasi uu ka dhashay muran xoog badan. dilka wiilka dhalinyarada ah ee xalay ayaa loo xiray 3 askari oo ka tirsan booliska degmada oo sida la sheegay ka agdhawaa goobta lagu dilay. magaalada Jowhar oo ah magaalo madaxda maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waayahan waxaa ka jiray nabadgelyo iyo xasilooni, waxaase ku soo kordhay dilalka labada wiil ee dhalinyarada ah kuwaas oo la dilay 2 habeen oo isku xigta. maamulka Somaliland ayaa magaalada Wajaale ku xiray ku dhawaad 20 qof oo lagu eedeeyay kicin dadweyne, abuurida rabshooyin lid ku ah nabadgelyada, warar been abuur ah, carqaladeyn howlo dan guud iyo inay meel uga dhaceen maamulka degmada iyo kan gobolka Gabiley. dadka la xiray oo isugu jira odayaal iyo ganacsato ayaa dhawaan weerar banaanbax ah ku qaaday meel ku dhow xabaalaha magaaladaas oo la dhigay kaarikooyin isugu jira dhagax iyo ciid la doonayay in lagu dhiso halkaasi. dadka banaanbaxaya ayaa ku andacoonaya in dhulkaasi qayb ka yahay dhulka ay leeyihiin xabaalaha magaalada, balse maamulka magaaladu ka iibiyay shakhsiyaad doonaya in ay iyagu dhistaan. maalin ka hor ayay warbaahintu waxay baahisay dibadbaxayaasha oo kala tuurtuuraya dhagaxii la dhigay halkaas, sheegayana inaysan ogolaanayn in dan gaar ah loo dhisto dhulkaas, waxaanay ku dhaleeceeyeen mas'uuliyiinta in ay ku takrifaleen hanti guud oo ay ahayd inay ilaaliyaan. waxaa kaloo la baahiyay mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada oo iyaguna isla maalinkaasba tegay halkaas, sheegayana in dhulku yahay mid dan guud balse uusan qayb ka ahayn xabaalaha. mas'uuliyiintu waxa ay beeniyeen in cid laga iibiyay ama la siiyay dhulkaasi lagana dhisayo dhisme dan guud oo ay leedahay wasaaradda gaadiidka si looga hirgeliyo goob lagu raro laguna dejiyo gaadiidka rarka sida ay isaga goosha Wajaale iyo magaalooyinka kale. dadka la xiray oo u badan odayaal ayaa waxaa loo gudbiyay magaalada Gabiley, waxaanay sheegeen mas'uuliyiintu in dadkaasi ay eedeysanayaal yihiin ayna sharciga horgeyn doonaan.
magaalada laascaanood waxaa lagu soo waramayaa in uu mar kale dib u kacay dab maanta la damiyey oo ka kacay dooxada ooda gooye ee bariga magaaladaas. dabka oo ka kacay dhuldaaqsimeed xawlina ku socday ayaa la sheegay in duhurnimadii maantaba ay timid qaylo dhaan lagu doonayay in wax looga qabto. dhalinyarada magaalada iyo kooxo dabdamis ah oo iskaashanaya ayaa gaaray halkaas dadaal badan kadibna waxay ku guuleysteen inay damiyaan. dabkaas uma geysan wax khasaare nafeed ah, wuxuuse baabi'iyey dhuldaaqsimeed badan oo lagu qiyaasay ilaa dhowr kilomitir. hase yeeshee wararka caawa laga helaya laascaanood ayaa sheegaya in inta habeennimadii ah uu dib u bilowday dabkaas. dadka deegaanka ayaa aada uga walacsan in dabka mar kale bilowday goor habeen ah oo ay adag tahay in la helo gurmadkii maanta oo kale. dabka ayaa haddii uu habeennimada iskii u socdo baabi'in kara dhuldaaqsimeed aada u tiro badan, saameyna kara qoysas badan oo reer guura ah. wararka dibaddana xerilaalyaha guud ee dalka Mareykanka William Barr ayaa sheegay in uu qadiyaan ka taagan yahay qoraalada uu Twitterka ku qoro madaxweynaha dalkaasi Donald Trump. xerilaalyaha ayaa aada uga cabanaya qoraalada ku saabsan wasaaradda cadaaladda, shaqaalaheeda iyo kiisaska ay gacanta ku hayaan. tallaabadaas ayuu sheegay in ay kaliftay in xafiiskiisa uu si sharci ah u gudan waayo howlihiisa. hadalka kasoo yaray William oo ah xubin miisaan leh oo ka mid ah xulufada ugu adag ee madaxweyne Trump ayaa yimid maalmo kadib markii waaxda cadaaladdu ay kasoo horjeesatay soo jeedinta garyaqaanadeeda kuna talisay in xukunka laga khafiifiyo Mr. Roger Stone oo waqti dheer saaxiib dhow la ahaa madaxweyne Trump. Stone ayaa lagu helay in uu been u sheegay Koongareeska, inuu farageliyey markhaatiyaasha iyo in uu carqaladeeyey cadaaladda xilli lagu howlanaa baaritaanada faragelinta dowladda Ruushia ee doorashadii Mareykanka ka dhacday sanadka 2016. Trump ayaa sheegay in soo jeedinta xukunka ah 7 ilaa 9 sano oo xabsi ah oo lagu xukumay Stone uu yahay mid aada u daran oo aan cadaalad ahayn. intaas kadib maxkamadda ayaa soo saartay go-aan kale oo ah xukun intaas ka yar, kaasoo soo baxay saacado kooban kadib markii madaxweyne Trump uu bartiisa Twitterka ku qoray dhaliisha uu u jeediyay waaxda cadaaladda. tallaabadaas oo aan horey uga dhicin Mareykanka ayaa kaliftay in 4 garyaqaan ee waday kiiska Stone ayaa ku dhawaaqaan inay isaga baxeen kiiskaasi iyadoo mid ka midana uu iska casilay shaqadaasi. William Barr ayaa warbaahinta u sheegay in Trump uusan weydiisan in uu wax ka bedelo kiisaska la xiriira dambiyadaasi. qoraalada noocaas ayuu tilmaamay in ay curyaaminayaan habsami u socodka howlaha waaxda cadaaladda ee Mareykanka, wuxuuse sheegay in uusan ahayn in ay u cagajugleyn karaan Koongareeska, warbaahinta ama madaxweyne Trump.